Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and kusoo dhawaada Somali Scalping Trading oo halkan nisha raaxaysa FX Primus technical analyze طبعا waxa maalgelinaysa FX Primus anagoo caawinayna dadka Soomaaliyeed ama ku guda jirna inaan caawino halkan saad u jeedaan waa introducing ama waa maxay FX Primus technical analysis waa meel technical analysis iyo forecasting suuq soo noqon doona price ku isku bedeli doona sidoo kale waxa weeye technical waa dadka technicalistayaasha waa dadka analyze gareeya suuqa iyo chartska qaybta chartska iyagoo isticmaalaya ama fiirinaya price ku isku bedelay suuqa volume ka soo galay maskax ahaanta indikatorada qofka uu mar walba isticmaalo technical analysis ka qofka طبعا wuxuu fiiriyaa markasta trendka iyo patternska si isku bedelaan ama candlestickska kaasoo ay ka cabir qaataan sida uu qiimaha uu noqon doono mustaqbalka dambe ama saacadaha daqiiqadaha marba chartka ama time frame ka isticmaalayso agenta waxa waaye qaababka u kala baxo ama sida dadku setup-kooda u samaystaan agenta wuxuu ka kooban yahay waa chartka waa chartska ama patternska ugu badan ee dadku trade gareeyaan price wuxuu isna ku xaqiimeeyaa ama ku dhisan yahay indicatorska volume-ka sidoo kale iyaguna waxay ku dhisan yihiin indicatorska Elliott wave sidoo kale dad waaye strategigooda sidoo kale qaybta hoosan usii gudubno charting the market suuqa chartkiisa dad baa siban chartska u isticmaalaan mar waxay isticmaalaan chartist dad waxaa jira bar charts ama candlestick or point figure charts to look patterns which may indicate future price movement waxay ku xisaabsadaan bar chartska ama candlestickska ama pointiga sida uu chartka ama candlesticka u eegyahay kaasoo ay ku cabirtaan sidoo kale sidaan hore u soo sheegnay sidoo ama dhaqaaqa uu suuqa samayn doono saacadaha ama daqiiqadaha soo socda sidoo kale waxay analyze gareen volume-ka iyo waxyaalo kale physical ama maskaxiyan indicatorska percentage-ka iyo bulliska ama uu kor aaday ama uu hoos aaday qofka chartista dabcan ma uu ixtiraamo ama ma siiyo muhiimad newska ama fundamentalka Trumba OHLC charts taasoo lagu cabirto OHLC oo macnaheedu tahay open high low close waxa waaye kor ka soo gal qiimaha hoostana iskaga xiro faa'iidada kala baxa ama sida kale way noqotaa taasoo anagu u imaan doono ama waxa waaye hoosta ka gado ama kafur oo korka isaga xiro faa'iidada kala baxay sida u jeedaan halka candlekan high open lower budgetska budgetkan waxan lagu cabirto ujeedna hadda buy oo kale low open trade kaygan soo galnay high close halkaasan isaga xirnay Japanese candlestick kan calaamadan madow oo dheer waxaa la dhahaa standard bar chart Japanese candlestick waa kan dabcan labadoodu waa ku mid laakiin
waxyaa isku wax bay qabtaan isku waxa lagu xisaabsadaa laakiin laba magac ay kala leeyihiin sidoo kale isagoo haddana seel oo ujeednaa high aan kasoo galnay oo hoostiina waan isaga xidhnay standard bar chartka sidoo kale Japanese-ka candlestick-giisana isna waa sidoo kale baa loo xisaabsadaa high open and low close korka kasoo gal hoostana faa'iidadaada kala baxeen aan kasii socono halkan waa ujeednaa isticmaalayso dabcan dadka Soomaaliya jooga waxaan kula talin lahayn in ay FX isticmaalaan waxay heli doonaan seminaaro waxay heli doonaan oo kale sanadkan 2019 inaan waxyaalo badan aan u qabano oo dhalinyaro badan oo suuqa aan wax xasaas ka fahansaneen oo riski badan qaadanaya in aan barno halkan sidoo kale waa ujeedaa qaybaha Japanese candlestick dabcan iskuma eka bar chartka iyo candlesticks-ka iskuma eka laakiin wax kasta waxay cabirayaan suuqa dhaqaaqiisa labadaba waa ujeedaan candlesticks-ka isna sidan uu eegyahay oo waa chartka dadka badanka ay isticmaalaan bar chartka dad kayriisko technicalistayaasha isticmaala qaybuhu ka kooban yahay technicalka analysis-ka waa dadka qaar waa trend lines-ka bay raacaan dadka qaar moving averages bay ku trade gareeyaan dadna price patterns-ka ama candlesticks-ka dadna indicators iyo cycles-ka dad baa laftooda ku trade gareeya trend line-ka baa noogu soo horeeya sidaan u jeedno trend line-ka waxa waaye markuu kor u socdana calaamad supporta ama marka aad u sameynayeen oo aad markasta halkaas go'aan ka qaadanaysid ama strategy-gaagu ay ku dhisnaan doonto sidoo kale markuu hoosta downtrend yahay waxaad ku xisaabsan karaysaa range-ga ama meesha uu qiimaha marba resistance-ga uu soo taabanayay dabcan markuu halkaas soo taabtay seelan gelaynaa ka baxaynaa oo trendiga markastana strategy-ga raacayna sidoo kale halkan oo kale waa ujeedaa mar labaad soo taabtay waa seelan geli karaynaa korka markuu aadayna waa sidaad ujeedaan haddana trend lines-ka waa saddex qaab mar waa uptrend marna waa downtrend marna waa trend range oo qiimuhu uu raftaa volatility badan suuqa ku jira uu khatar badan yahay marka dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa inay iska ilaaliyaan suuqa marka uu saayahay ama ay money management isticmaalaan stop loss fiican ay isticmaalaan aan ka sii gudubno support iyo resistance-ga dadka badanka way yaqaanaan wuxuu ku sheegaa support iyo resistance-ga trendiga in uu dhamaaday iyo in kale resistance sidoo kale wuxuu ku tilmaamayaa suuqa meesha uu ku raftay ama ku adkeed inuu dhaafo support-kana sidoo kale waa ujeedaan calaamadan resistance adag bay ahayd oo halkan uu support u ahaa ujeedaan halkan resistance adag waayo oo dabcan hadduu break gareeyo waxaa sugayso waa suuqa inuu sii socdo ama uu socodkiisa sii wato halkan sida ujeedno waa moving average-ka simply the average price and usually the closing price of the last period moving average-ka waa ujeednaa sidoo kale marna qiimaha uu ka hoos maray marna uu ka dul maray marna uu ka hoos maray dabcan dad baa jiro oo US-ka ama wax soo baxay aan qiimeyn oo indicators-kooda ama marba waxay isticmaalayaan sida moving average-kooda ku trade gareeya dabcan waxa loo baahan yahay inaad khibrad dheer u leedahay marka aad technical list aad rabtid inaad noqotid waxa ka horeysa inaad fahantid suuqa iyo qaabka ama strategy-yooyinka sida u kala baxaan price patterns-ka waxa waaye technical-ka
waxa ay u kala baxaan buttons ama waxyaalo badan sidoo kale qiimaha siduu soo sameeyay xilliyadii la soo dhaafay oo isagoo lagu cabiranayo haddana xilliyadii iyo waqtigii iyo sida uu suuqa ahaa sidoo kale ha ilaawin dadka qaar waxay leeyihiin buttonska illusion wax macnaha ma sameeyaan have no meaning real meaning sidaasoo tahay waxaa loo arki karayaa price keliya sida uu soo socday keliya price buttonska sidoo kale halkan waa hide and shoulders dadka qaarka badankooda ay ku trade gareeyaan waa u jeednaa garabkii bidixda iyo garabkii midigta madaxiina waa u jeednaa oo dabcan dadka qaar ku trade gareeya sidoo kale marka uu reversal uu sameeyay waa u jeednaa isagoo hoosta haddana sidii oo kale garbihii sameeyay iyo madaxii taas laftigeeda dadba ku trade gareeya waa strategy fiican sida halkan u jeedaan sell signal baanu soo inta uu targetka yahay waana u jeednaa meel adag oo mar hore uu sellka signalka faa'iidadeeda aan ka dhiganay dabcan sidoo kale double tops and double bottoms waxa waaye marka uu qiimaha laba jeer uu soo taabto laba meelood in badan soo dhaafay euro way ku adkeyd resistance-ga inuu dhaafo ilaa maantana muusa soo taaban mar labaad ama mar saddexaad inkastoo mar labaad u jebiyey maalinkii khamiista oo hoos loo soo celiyay isla maalinkii khamiista sidoo kale waa u jeednaa sidoo kale inuu haddana sameeyay double bottoms laba hoose oo markaas labada jeer markuu hoosta soo taabtay kale waa sugaysaa ka bacdi baya kale faa'iidadaada meeshii hore baad ka dhiganaysaa take profitkaaga isagoo example waa u jeednaa isagoo sidaasay tahay halkan qaab kale u samaysan waaye laakiin isla wixii bay qabanayaan waxay ku sheegayaan suuqa siduu ahaa ama siduu uu trendiga uu ku jiro qiimihii isla xilligaas qiimaha intuu yahayna uu ku sheegaa dabcan sidoo kale volume-kana waa kan waa indicator dadka laftigooda qaar ay ku trade gareeyaan dabcan waa u jeednaa laba jeer double bottom oo hoosta uu soo taabtay mar labaadkii halka haddaanu buy ka geli lahayn faa'iidadeeda waxaanu ka dhigan lahayn meeshii ugu horeysay ama ugu koreysay oo resistance-ga ahayd waa fahanteen aan filaa aan ka sii socono triangleska ama suuqa marba siduu usoo socdo trianglesku saddex u baxaan mar waa ascending triangle oo sidan oo abka uga baxo marna waa descending oo sidaasuu sameeyaa oo hoosta uga baxa marna waa subtericalka oo uu qiimaha sidaasuu sameeyaa oo sidoo kale buygaasuu galaa marka ugu dambeysa sidan oo kale isna waa isagiyo town train gelaya waxaana markasta waxaana sharaxaynaa ama hadda tilmaamayno waa hab qof kasta tii u fudud intuu qaato ku trade gareeyo uuna macallin ku noqdo hal mid maaha maalinba mid inaad geshid waxaa laga yaabaa maalmaha ugu horeeya inaad loss la kulanto dhib ma laha sabur money management isticmaal wixii caawinaadana na soo weydii dabcan waan ku caawinaynaa sidoo kale waxaan u jeednaa halkan waxaan waa chat buttonski dabcan ama
candlestick iskooda nooc kala oo patterns chart bar chartka loo yaqaano halkan oo uu trendiga rounding uu sameeyo oo marmarka qaarkood marka sidoo kale uu suuqaysna ku adagtahay in meel dhaafa ama uusan suuqa volume badan ay ku jirin ama dad badan aysan trade galaynin baa lagu xisaabsadaa ama lagu gartaa markastana dadka qaar ah jiro oo translatekeeda macalin ku ama ku trade gareeyo strategy ay tahay oo sidaan u jeedno kan waa round down-kii bottom isagoo hoosta soo maray sidaan waa qaabkan uu sameeyaa ama uu markaas baad go'aanka aad qaadan karaysaa hadba iyo strategy ama sida aad adiga go'aankaagu yahay ama plaankaaga sidaan u jeedno Dow Jones-ka waa inta uu taas oo markastana gaab markuu jiro should get fill it gaabka waa qiimaha inuu ku soo noqdaa uu mar labaad meeshu gaab ka sameeyo uu buuxiya mar walba ay dhacdaa laakiin xilliga lama garan karo marba qiimaha uu samayn doona ama uu gaabkaas xiri doona technical indicators ama technicalka indicators-ka sida uu kala baxo ama waxaa jira 100 technical indicators jira oo aad ku isticmaali karayso buy iyo sell signalska waxaanu fiirinaynaa kuwa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ama ugu adag oo qaar ka mid ah iyaguna maaha oo afar xabo moving average conference divergent oo loo yaqaan next sidoo kale waa refelt strength index RAC balance volume isna waa lagu cabirtaa waa volume ka say bowling bandisna iyaguna waa sidoo kale waa indicators-yada ugu fiican forex-ka haddaba aan ku hadalno marketiga waxaad ku horumarsanaysaa moving average-ka qaabka uu suuqa ama uu ahaa xilliyadii la soo dhaafay sidoo kale marketiga wuxuu u kala baxaa laba nooc waa 12 maalmood iyo 26 maalmood waxaa jira waxaa jira 9 cisho isagana 9 cisho marba inta rabtaa ka dhiganay laakiin maalmahaas ugu fiican signalada ama ad signals ka samaysan karaysaa sidoo kale waxaa jira marka uu signalkaagu uu negative noqdo isagoo negative ah positive noqdo buy signals galaysa ama uu ku soo saaraya sidoo kale signalka markuu uu kor u socday uu hadana uu hoos ama uu marketiga ka dhex baxo ama uu marketiga ku tuso in uu qiimaha hoos loo wado sell aad galaysa taas laftigeeda waa strategy dad baa isticmaala oo faa'iidooyin ka sameeya dabcan sidaad u jeedaan waa use job trendless markets subject to it was out completely with little or no profit marketiga waxa waaye waxa loo isticmaalaa jobiga ama trendka leska isagoo mar walba ku soo koraya time chartkaaga marka aad isticmaalaysid qaybta hoose isagoo ku tusaya trend kaligiisa waaye marketiga markastana wuxuu soo koraa chartka qaybta hoose u gudubno sidoo kale qaybta kale sidaan u joogno marketiga waka aan sharaxnay waa qaybtan korka ah volume-kiina waa kan qaybtan hoosta dabcan marba sida u joogno qiimaha halkan uu ka kacay oo ujeeda marketiga laftigiisa uu kacay oo negative ahaa positive noqday buy kale sidoo kale markuu hoosta imaanayo ujeeda korkaas ku imaaday halkan soo taabtay oo halkan ah kabacdi buy kale dabcan waa fahmi karaysaan filaa
sidoo kale waxaa jira relative strength index RSC oo isagana lagu hormariyo ama aad ku cabiranayso marba suuqa price-ka siduu isku bedbedelay maalmihii lasoo dhaafay taasoo aad go'aan ka qaadanaysid waxaana ku xisaabsan kartaa 1 ilaa 100 maalmood ama sidoo kalena RSC-ga mar walbana above SIPS 70-ka indicates wuxuu ku tusayaa in qiimahan markastana RSC-ga marka uu ka dhex baxo chartka ama waa ni tusi doonaa uu noo soo socdaa isagoo charta qaababka uu u baxo sidoo kale RSC-ga keligiis ma shaqeeyo mar walba ama sidii aragtay ma noqdo waxaa loo baahan yahay inaad waxyaalo kale aad qiimaha go'aanka ka qaadan karaysid sida ujeedna RSC-ga wakan waa of about oo ujeedaan 70-kii 60-kii 30-kii dabcan oo haddii uu 70 kor u dhaafo wuxuu ku tusayaa suuqan in uu of about ahaa haddii uu hoos soo dhaafana inuu of sell ahaa marka baad fahanteen aan filaha markastana RSC-ga chartka hoosta ama korku ka koraa oo meeshaas aad ka arki karaysaa insha Allah uu ku tusaa oversold qiimaha inuu yahay oversold halkaas ka arki karaysaa kasi socono bowling bankska waxa sameeyay ama John Bollinger oo magaciisa John Bollinger la dhihi jiray waxa waaye wuxuu ahaa shirkadda FNN buu technical wuxuu ka analyst sidoo kale wuxuu ahaan jiray ama uu daadihin jiray kanaalka CNBC bowling banka waxay ka kooban yihiin waa moving averages oo qiimaha marka uu isxiro sidoo kale waxa lagu xisaabsadaa labo qaab above and below the moving averages-ka ama marka uu korka aada ama uu hoosta ama uu bilaabo average-ka moving average-ka marka uu signalku baayahay the currency suuqa wuxuu isku xireeyaa hoosta bankiga hoostiisa ama qaybtiisa hoosuu soo taabanaa markuu sell signal yahayna currency-ga close wuxuu isku xireeyaa korka marka uu bowling banta korka wuxuuga dhaafo markaasuu sell galaa markastana bowling bandiska wuxuu ku cadeynayaa in suuqa uu soo geli doonaa dhaqaaq weyn waana macquul inuu up ama hoos ama korkiisa sii aada ama hoosta kusoo noqdo laakiin boqolkiiba 70 waa strategy shaqeynaysa haddii aad 30 ama 25 dhiman aad samaysid hard work shaqo adag aad kamel gaari karaysid anka sigudno halkan waa ujeednaa bowling banka halkaas uu ka dhex baxay waxaana ku tusaysaa in uu suuqa uu sameynayay dhaqaaq badan ay soo gelaya aad halkaas go'aan ka qaadan karaysid sidoo kale buy signal waa ujeednaa halkaas uu ka dhex baxay kabacdi buy kale sidaas waa loo isticmaalaa bowling banka marka dadka ku cusub Somali scalping trading waxaanu ku guda jirnaa inaan dad badan caawino waad nagala soo xiriiri karaysaan Telegram-kayga linkiga halkan aan kula socodsiinayna insha Allah webinar baanu qabanaa arday badan baanu caawinaa
wax lacaga aan ka qaadayno ma laha investmentiga iyo suuqan forex waanu ku baraynaa waxaanan ku guda jirnaa mustaqbalka dambe insha Allah waxyaalo waaweyn baan Soomaalida usoo badnaa 2019 insha Allah halkan sida u jeedaan waa Elliott Wave principle wanka Elliott Wave wuxuu ka soo ama ay ahayd maskax ka timi ama financialka 200 ama lagu xisaabtan jiray marka ay waqtigu 1939 kaasoo la aaminsanaa marka Alfred Yusuf lagu cabi jiray suuqa ganacsiga mustaqbalka dambe xilligaas markii la joogay Elliott Wave wuxuu ka kooban yahay waa 8 life cycles ama 8 life cycles oo aad ku arki doontaan halkan qaybteena chat-ka hoose oo ujeedaan Elliott Wave ka sida wankaas iyo labadaas iyo saddexdaas iyo afarta iyo shanta marba qofka strategigiisa intaasoo jeernayn suuqa waad geli karaysaa oo faa'iidadaada inuu ka qaadan karaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad ku trade gareyn karaysid ama aad horumarin karaysid dabcan kusoo dhawaada waxaa maalgelisay webinarkan FX Primos the sixth place to trade waa nimaad celinaynaa qof kastoo Soomaaliyeed waxaan ku guda jirnaa inaan caawino nagala soo xiriiro Telegramka nagala socdo maalin kasta US-ka ama suuqa siduu yahay baan kusoo bandhignaa insha Allah sidoo kale waxaanu ku guda jirnaa inaanu webinaro noocan oo kale ah oo FX Primos maalgelinayso suuqa ama dadka Soomaalida aan ku caawino insha Allah waa free wax lacag u dalacayo malaha only hard work and believe yourself waxa kaloo laga baahan yahay saburka waa waxa kaliya adduunka horumar lagu gaaro teeda kale markaad rabtid inaad trader noqotid waa inaad horumarisaa nafsadaada iyo qofnimadaada buugaag badan akhrisaa oo aad nala soo xiriirtaa wixii caawinaadana waanu caawinaa maalin walba boqolaal arday nala soo xiriirta oo adduunka caalamka meel walba ka joogta feel free animaad celinaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.